waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da maantana wuxuu ku saabsan yahay ararta oo ah astaan ka mid ah astaamaha maansada Soomaalida. dhegaystayaal inta la hubo ereyga arar laba macne ayuu af Soomaaliga ku leeyahay. macnaha hore waxaa loo yaqaan berrimada ku xeeran qoysaska reer miyiga ah ee ruumanka ay degan yihiin ee xeryaha xoolahoodu ay ka oodan yihiin. kolkuu gugu hooro mahiigaan roobaad kolkuu cido meel degan ku dul gabdhamo kolkuu ballida iyo jidhaamada wada buuxiyo gal iyo goof waliba markay caadda maraan ee laasaha iyo ceesha dhaadheeriba ay karkaarada jabshaan kolkay daadadku mulacayeeyaan oo xeryihii xoolaha loo dhigay iyo dhulkii ay u soo hoftegi jireen la kala garan waayo arigii doonka ahaa kolkuu caaco ee lugulkii daraacda kuduli ku dhoweyd uu dhowr aqooloodba daaq u hollan waayo kolkay cadcaddaan noqoto oo kararta uu eebba daruuraha ka soo daayey aawadeed ay madaxa kor u qaadi waayaan kolkaas bay reer guuraaga Soomaalidu intay gacmaha kor u taagtaan xagga eebbe baryo ula jeestaanoo roobka naga qaad iyo naga jooji toona kuma dhiiradaane allow araraha iyo awradaaqeenka ay ku ducaystaan. ereygan arar iyo araarba Soomaalidu way ugu dhawaaqdaaye sidaan soo tilmaamay waxay markaan ula jeedaan halka reerku ka oodan yahay dhulka ka yara durugsan ee awrta rarooyada ahi iyada oo dabran ay maalin weynta u daaq tagto fiidkiina ay kurayadu ka soo hooyaan. kaasi waa macnaha koowaad ee uu ereygaasi leeyahay. macnaha labaadi wuxuu ku lug leeyahay suugaanta iyo aftahamada Soomaalida. hadalku ama tix maansa ha ahaado ama tiraabfaneed ha ahaadee waxay aftahanada Soomaalidu u qaybiyaan arar iyo duluc. arartu waa erayada gogol dhigga ah ee dooda lagu bilaabo gaar ahaan marka ay doodaasi tahay mid loola dan leeyahay in dad badan maanka lagaga xado oo iyaga oo aan is ogeyn mar qura lagaga yeersiiyo hawraarsan kaaga marag iyo alla ilaahay waa runtii. allah u naxariistee Faarax Xuseen Sharbaarke oo ka mid ahaa maansayahanadii ararta culus ku caanbaxay ayaa geeraarkiisa lagu garan og yahay atoor guuyo sagaaro waxa uu ku sheegay halka qaybtaasi ay aftahamada maansada ka gasho. waa kii lahaa war allahu akbarey ilaah baa amar weyn aadmi waaba laciif islaamkii awalkiisu shahaadada weeye aayaddii nebigeenna unugeeda horeeto bisinkaan aftognaa gabaygana irdihiisa arar baa la yidhaah. marka ay aftahamada joogto ararta waxaa adeegsada doodaaga geedjoogga ah ee ku dadaalaya gar maalintaa goobta taalla inuu ku guulaysto. sidoo kale waxaa isaguna adeegsada gabyaaga doonaya in ujeeddadiisa uu culays dheeri ah ku kordhiyo ka hor inta aanu u gudbin soo shaac bixinta fariinta uu gudbi isleeyahay taasoo iyadana dulucda loo yaqaan. waa macnahaas labaad midka aynu hadda ka hadlayno oo astaamaha habdhiska maansada Soomaalida la xiriira. mase moodaa markaad dhab ugu fiirsato inaanba labada macno kala fogaynoo midna loola dan leeyahay afaafka ujeeddada iyo dulucda hadalka midna afaafka reeraha iyo barta ay aqaladu ka dhisan yihiin. waa suuragal. su-aasha haddaba u baahan in halkan lagaga jawaabaa waxay tahay maxay noqon karaan sababaha maansayahanka Soomaalida ku xambaara tixaha uu tirinayo inuu arar ku bilaabo dulucdana uu ka horraysiiyo. inkastoo aysan fududayn 1 2 iyo 3 inta la yidhaahdo in tiro go'an lagu soo koobo haddana waxaa la maamin karaa inay jiraan sababo dhowrahoo maansayahanka arrintaa ku dhiirigeliya. ilaa 4 sababood ayaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo kuwa xiga inaan ku soo bandhigo aniga oo mid walba u soo daliishanaya tusaalayaal aan ka soo xigan doono gabayo xilliyo kala duwan ay kala tiriyeen qaar ka mid ah maansayahanada Soomaalida kuwa ugu magaca dheer. sababta koowaadi haddaan ku bilaabo waa gabay kufaanka iyo u hanjabidda maansayahanada kale. qacda horeba maansadeena ruuxii u fiirsadaa wuxuu moodi karaa garna uu ku leeyahay arartu inay tahay qaybta uu gabyaagu u adeegsado
is-ammaanidiisa xagga awoodda maansa culintiisa iyo isaga qof ahaantiisaba. taasina inkastoo aysan run wada ahayn haddana wax badan baa ka jira. waxaaba lagu dhiiran karaa in la yidhaahdo 50% haddii aysan ka badnaynba kama yara inta uu maansayahanku cararta ugu adeegto muujinta aqoontiisa, tirinta tixaha nuxur kale sida isaga loogu fududeeyey ee qayrkii loogu dhibay, iyo xiisaha xaddhaafka ah ee dhegaysatadu ay mar walba maansadiisa u hayso. taas waxaa barbartaal oo xinif maanso markay jirto uu maansayahanku cararta ugu adeegtaa ugoodiga iyo guulguulka maansayahanka kale. wuxuu aalaaba ararta ku sheegaa tiisa mooye maansadii kaleba inay kala daroosho, ilaahay amarkiina lagulama yaabo. allaha u naxariistee gabyaagii weynaa ee la odhan jiray cali cilmi afyare ayaa 70-nadii qarnigii 20aad waxaa la weydiiyey su'aal ahayd, muxuu calow gabyaagu isu ammaanaa? sawtii ay soomaalidu ku mahmaahday nin isfaanshay waa ri isnuugtay. wuxuu ku jawaabay, waa mahmaah run ah, ha yeeshee gabayga iyo gabyaaga ma khusaysa kumana saabsana. gabaygii aan carar iyo goodi lahayn ayaaba lagu tilmaami karaa ri aan geesa lahayn oo madax gamuuxan, ri seenyoon.